asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa Duuli Media. Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Ku qasbidda naftaada inay dadka ku aqbalaan oo ay ku jeclaadaan waa waqti lumis. Kaliya xoogga saar naftaada oo qiimo u yeel waqtigaaga iyo noloshaada. Dadka ayagaa kuu imaan doona, ayagoo ku weydiinsan doona caawinaad. Waxaan jeclahay inaan hal qiso oo kaliya aan kusoo koobo. Qisadaasna waxay u dhacaysaa sida tan. Nin la yiraahdo George McLaurin oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee madow ah ee jaamacadda Oklahoma dhiganayay sanadkii 1948 ayaa waxaa lagu qasbay inuu fariisto meel ka durugsan saaxiibadiisa caddaanka ahaa ee jaamacadda la dhiganayay galaaska. Laakiin magaciisu wuxuu ku jiraa liiska sharafta isagoo ka mid ah 3 arday ee ugu wanaagsan ee jaamacadda soo mara. Kuwani waa ereyadiisa qaar ka mid ah. Wuxuu yiri, qaar ka mid ah asxaabtaydu waxay ii eegi jireen sidii inaan ahay xayawaan, qofna ima sii jirin waqti iyo la hadal. Macallimiintuse waxay u muuqdeen inay macallinba ii ahayn. Aniga mar walbana su'aalahayga ma qadarin jirin markaan weydiiyo su'aalo. Laakiin anigu waxaan go'aansaday inaan cidba wax ka sugin, ayuu yiri George. Intaa kadib waxaan sameeyay, ayuu yiri, dadaal naf-hurid ah oo aan ku xaqiijiyay waxbarashadayda. Markaa kadib ardaydii jaamacaddu oo i takooray waxay bilaabeen inay aniga i raadiyaan si aan sharaxaad buuxda ugu siiyo ama aan ugu jawaabo su'aalahooda ku saabsan casharada. Sheekadani waa sheeko gaaban, balse macnaha ku fadhida ayaa waxay tahay in aadan qof bini'aadan naftaada aadan siinin, ama aadan ku xirin, ama aadan waxba ka sugin oo naftaada adiga hormarsatid. Midda kale, inay dadka oo idil ku saaxiibaan ama ay ku jeclaadaan qasab ma ahan, balse waxaa loo baahan yahay adiga naftaada inaad bartid inaad keligaaga wax walba aad qaban kartid. Kadib markii la arko go'aankaaga iyo ujeedkaaga iyo firfircoonidaada iyo nashaadkaaga iyo wax qabsashadaada iyo go'aamadaada siday u fulayaan, kadib qof walba bini'aadan ah wuxuu jeclaysan doonaa inuu asaga ku caawiyo mise caawinaad uu kusoo doonto. Ha noqonin qof la caawiyo mar walba, laakiin noqo qof asaga wax caawiya. wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.